hadduu gabay badhaadh leeyahoo lagu barwaaqoobo hadduu balad difaaciya hadduu baasas hurinayo boqol iyo jabbaa nool raggii baabkan loo furay waa burhaan ilaahay watiya baabad gooniya waa bishaaro loo furo qofku eebbahay baro waa dareen bidhaan dheer leh iyo baacis daba yaal barkhaddiisa goortaan helaan dib u bilaabay burhaan gabay lahaan jiray ma tirin birimadiisii ma bilaabin maansooyinkan baani ku ahay balaan caawa baalkeeda rogo baydna ka idhaah dhaqan beriyey soo jiray balaan mariya baalayd balaan buuro dhaadheer ku furo duuda babacooda soomaalidu siday beri ahayd beegsi ula aado gubar waa bulshada oo degtiya beelo wada yaalla oo balaayay baydh tahay intii nabadda loo baaqay oo baayir lagu maalayiyo sidigtii baylaamba oo burcad iyo karuur weelashii buuxshay idilkoodba hablihii iyo barbaartana caways laysla daaweeye baanigiiyo abwaanadu gabyaan amase beeldaaji beri hore sidaasaa jirtiya sharaf bidhaanteed afartaa bartii aan la rabay burunti mawsheed ma bayaanshay maansada sidaad iga barateenba dhaqan buray siduu beri ahaa baab ma ku cadday xeeraan burin rag baandheeya iyo odayo boosoobay garta niman bisleeyoon cadliga geesna uga baydhin guurti boqollo joogtiyo waayeel samaha baadgooba bilcan sharafta lagu guursadoo lagu badhaadhayo bilcan sharafta lagu guursadoo lagu badhaadhayo marti baahan soorkiyo wanaag la isku beeqaaqo beri hore sidaasaa jirtiya sharaf bidhaanteed birmageydadoo aan la dilin lana baxnaaneeyo birmad samaha daydayahay iyo baahanow socoto boqor talin birjeex geesi iyo baani gabaya baraa macallin beelmooge iyo magan badbaadoona bugta maralah oday boos ah iyo doqon bahluuloobay lama beegsan jirin maatidii iyo hooye beer nugul waa bisle maxamed shaah gabayga kanan maanta idiin soo mariyey waxaa la yidhaahdaa dhaqan buray dhaqan horay u jiri jiray oo ay soomaalidu intooda badani ay ka leexdeen ama aqoon la-aani ha u geyso oo jiilashaan dambe iyo facyaashaan dambe oo aanay facyaashii hore aanay uga warramin dhaqanku wuxuu hore u jiri jiray wuxuu ahaan jiray ha ahaato ama maan adayg iyo siyaalo kale iyo dhaqamo kale doorbidadood ha ahaatee soomaalidu waxaa jiray dhaqamo badan oo ay lahayd soomaalidu ma ahan ummad hadda un dhalatay waa ummad ilaa iyo waagu ilaahay ummadaha samaysnayd taariikhdeeduna heerar ay soo martay qof yaqaani iyo qof aan aqoonba si colaadaha loo yareeyo soomaalidii hore waxay sameeyeen dhaqankaasoo dadka birmageydada loo yaqaano laga dhigay kuwa ayaga dilka ka reeban ama ka caagan colaada oo dhan ayaa waxaa lagu soo koobay inta labada qof ay xabadda isku ridayaan ama warmaha isku haystaan xataa waxaa ceeb ahayd in habeenkii la ismiro oo reer meel degan intaad habeen soo gaado aada mir kula kacdo waxyaalaha ceebtaabay ahayd oo xeerashu ay diidi jireen dad badan oo waxaa jira birmageyda ah oo aada u tiro badan balse intaan gabaygan kusoo aruuriyo uguna talagalay dadku inay xafidkooda ugu fududaado ayaan filayaa inaysan ka badnayn 12 waxaa la oran jiray boqor taliya allama jiro haddii boqorka taliya ama ugaaska ama suldaanka ama beesha laba beelood oo dagaalamay la qabto in la dilaayay waa ceeb birjeex geesana lama dilay nin geesi ah oo la qabtay oo raggay dagaalamayeen ay qabteen in la dilaayay waxay ahayd ceeb maxaa yeelay ninka geesiga waxaa lagu yaqaanaa dagaalka iskama galo inay dani ku qasabto mooye baani gabayaana lama dilo birmad samadoon ah
oo rababa inay labada kooxood kala badbaadiyaan lama dilo qabiilku dhinacu raba ha u dhashay baahana socotaana lama dilo qof musaafira lama dilo inkastoo caado inoo noqotayoo wayahan dambe da wax la yidhahda isbaaro iyo jidgooyo iyo dhuljiif iyo dad baaba meesha shaqo ka dhigtayba war dadkaasow eebtiinu yaanay safar raacin dadkuna waydin og yihiin iska daaya baraa mucallim ah lama dilo qofka dadka wax baraya sheekha macallimka iyo qof kastoo bulshada nacfi guud u leh lama dilo beelmooga ina la yaal ah lama dilo in ina la yaal ah oo reerku gabadha ka qabay la degan dee inay dilaan imaha reerku gabadha ka qabay oo walaashaada say u xidhaysaa ma ilmahaada abtiga u tahay baad agoomaynaysaa magan badbaadoon ahna lama dilo beel qofku magan ah asagana lama dilo bugta maral ah qof bukaan ahba oo tii alla haysato isna lama dilo duq boos ahna lama dilo qof waayeel ah doqon bahluul ah ooba qadiyadda meesha ka jirta waxba aan la soconina dee laguma dhibca badsado bilcaan dumar ahna lama dilo sabi biyo ahna lama dilo ilma caruur ah isna lama dilo intaas waa ay ka badan yihiin dadka birmageedada la yidhaahdo balse intaas ayaan kusoo koobay gabayga dadka ceebahaa sameeya maxaa lagu xukumi jiray buu qofku is odhanayaa qofka waxaa lagu xukumi jiray bulshada oo dhan ayaa maxkamad ku qaadi jirtay oo meeshay soo istaagaanba waxaa la odhan jiray maqoladii waagisaa yeeshay baad ahaydeen markaasuu qof waliba ka sikan jiray warana nijaasaynina sidaasaa u ahayd maxkamad markaasuu qof waliba isagu is ilaalin jiray waayahan dambe waxaa soo baxday ani ceebi maxay iga taraysaa waa laba afmaroojis masaasay yeeleen waa bisle maxamed sheekh waanin salaamaya